cabsada buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. war naartaa ka cabsada, war naartaa lagu hurinaya dadka iyo dhagxaanta. wallaahi wax kale ma loogu talagelin, waxaa loogu talagalay jasadkeenna haddii diinta lagu baabi'in waayo, waxaa loogu talagalay caqligeenna haddii diinta loo adeegsan waayo, waxaa loogu talagalay lugaheenna haddii qur'aanka iyo meesha lagu bartay masaajidada lagula socon waayo. sidaa darteed ayuu ilaahay tilmaamaya subxaanahu wa tacaala qofka ahlu naarka ee naarta gala in ilaahay saa loogu gedgedinayo tilmaamayaa wejigiisa. waa lagu dubayaa, waa lagu gedgadoominayaa. aayad kale ilaahay wuxuu ku tilmaamay fakubkibuu fiiha hum walghaawuun, ayaga iyo intii dhumayba waa lagu afgembinayaa. naarta marka la gelinayo si istariixa socda ma jirto. naarta marka qofka la gelinayo afgembi baa loo seexinayaa. fakubkibuu fiiha hum walghaawuun وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون. إبليس أنت راعي ضمانته وحي أرايا أيبو دودايا تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إلهي بانكو دارني بعضي بانكو جرني إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين. نمر من إلا مجرمين ما أنا وحكلي ما أنت نوم سقنان صديقي صاحبي حميم نومرجا maanta wax noo qabanayaa ma jiro falow hadday noo sugnaan lahayd oo ay noo sugnaan lahayd hal mar oo karasho ah oo noqosho ah mu'miniintaa ka mid noqon lahayn. inna fii daalika la aayad baa ku sugana walaalayaal ku cibro qaata. wallaahi naartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diyaariyey. naartaa ilaahay qofuu ku dulminayaa male. qof kastaa maanta waxa waa loo caddeeyo, waa loo bayaaniyey. wax walbaa ilaahay khayrkiisii wanaaggiisii waa u sheegay. aan noqona dad caqligooda naarta uga fakada, aan noqona dad diinta inay raacaan, khayrka iyo wanaagga ku dadaalaan. ilaahay suu u badbaadiyey subxaanahu wa tacaala. weli waxaan ku jirnay ahlu naarka si saani ah inaan naarta loo gelinaynin ee si dulli ah loo gelinayo. muxuu ilaahay aayad kale ku yidhi alqiyaa fii jahannama, qabtee ku tuura buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. alqiyaa fii jahannama yaa lagu tuurayaa kulla kafaarin caniid, mid kastoo kufriniman badnaa haddana madaxa kaa. aawa dadkii la yidhi salaada tukada ma adigaa nagu leh ku jawaabay caniid, madax adayg. aawa dadkii la yidhi war ilaahay ka cabsada, ilaahay maad naga xigtaa dadkii ku jawaabay aaway. qabta buu leeyahay ilaahay alqiyaa fii jahannama kulla kafaarin caniid mannaacin lilkhayr, khayr mancin badnaa, haddana xadgudub badnaa, haddana muriib ahaa oo shaki badnaa. alladii jacala maca allaahi ilaahan aakhara, ka ilaahay micigiisa ilaah kala sameeyey oo shirki sameeyey oo ilaahay keligii ku filnaan waayey oo rabbiyow iyo ilaahayow iyo raxmaanow afkiisa laga waayey oo wax qubuur ku jira iyo wax ilaahay kayrkii u cararayna. alladii jacala maca allaahi ilaahan aakhara faalqiyaahu fi alcadaabi ashadiid, cadaabka adag korida buu yidhi ila subxaanahu wa tacaala. cadaabka kiisa ugu xanuunka badan markaa ku tuura. si saxan ah oo wanaagsan oo soo dhowayn ah maba jirto maamuus ah. waa la ganaa, waa la tuuraa. ilaahay aayad kale muxuu ku tilmaamay yowma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim, waa la jiidayaa gobolnaa. inta malaa'igta silsiladaha loo dhibay ay haystaan yuu ilaahay tilmaamay uu yidhi maalin yowma yusxabuuna, maalin lagu jiidaayo naarta calaa wujuuhihim. maxaa loo dhahayaa duuquu masa saqara, saqara taabashadeeda dhadhamiya. aayad kale maxay ahayd yucrafu almujrimuuna bisiimaahum fayu'khadu biاlnawaasi wاlaqdaam. waa la aqoonsanaa mujrimiinta, mama la su'aalayo sida aayadda ka horaysay ay tilmaantay fa yowmaidin laa yus'alu can denbihi insun walaa jaan, la weyddiin maayo. sababtu maxay tahay? looma baahnaba. yucrafu almujrimuuna bisiimaahum, calaamadaha lagu aqoonsanaa buu yidhi ilaahay. fayuuqadu binnawaasi, fooda laga soo qabanayaa iyo walaqdaam. mufasiriinta qaar baa waxay dhaheen waxaa loola jeedaa inta fooda laga qabto yaa saba gadaal loo soo jebinayaa, markaasaa gomadda lagu xiraa iyo cirbaha, markaasaa naarta lagu tuurayaa buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. waciyaadu billaah. walaalayaal xaaladdu xaalad sahlan ma aha. ilaah xaq ayaan ka baryaa inuu xaqana waafajiyo, naartaa dhibka badanana ilaahay jasadkeena ka ilaaliyo. muslimiintao dhan ilaah waxaan uga baryayaa khayr iyo wanaag meel kastoo ay joogaan. kii xanuunsanna caafimaad taam ah inuu ilaahay siiyaan ilaahay ka rajaynaynaa. keena baadiyaysanna ilaahay noo soo hanuuniyo, masaajidada noo keeno. keena hanuunsanay inuu ilaahay hanuunka markaa ku siiso. wabilaahi towfiiq. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.